laba diyaaradood oo ay leedahay dawladda waddanka Turkiga ayaa lagu arkay hawada magaalada Hargeysa iyadoo baqdin xoog leh xilligan ay ka jirto magaalada Hargeysa iyo deegaanada hoos yimaada xilli dambana diyaaradahan waxaa la soo warinayay inay joog hoose xataa ku socdeen maxay tahay ujeedada Turkidu hadda ay u farageliyeen hawada Somaliland faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay amuurta ku saabsan ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari iyo ku-xigeenkiisa oo gaaray halkii ugu sareysay garaadada maamulka Waqooyi Bari oo khilaafkan isha ka daawanaya iyo gacan ka hadal laga cabsi qaba inuu ka dhaco gudaha magaalada Laascaanood ciidamo si gaar u taabacsan ku-xigeenka madaxweynaha Waqooyi Bari oo soo galay magaaladaas sidoo kale qodobada kale aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona beesha warsangeli oo sheegtay inaysan difaaci doonin magaalada Cerigabo ma heshiis qarsoodi ayaa waxa uu dhexmaray beesha warsangeli ee taabacsan Somaliland iyo maamulka Waqooyi Bari maxaa hadda ka socda Cerigabo wararkii ugu dambeeyay ayaan ku hayaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiib yaaladiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday tahay markii kuugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga ee noogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal laba diyaaradood oo ay leedahay dawladda waddanka Turkiga gaar ahaan noocii ugu dambeeyay oo ay Turkidu farsameeyeen ayaa lagu arkay iyaga oo galay hawada magaalada Hargeysa haddaba waxa ay tani ka dhigan tahay bilow ilaa dhammaad siday wax u dhaceen talaabada ay qaaday Somaliland iyo sababta keentay in Turkidu ay farageliyaan arrimaha gudaha Somaliland faahfaahin dhammaystiran oo dhinac walba ah ayaan ku siinayaa xalay xilli dambe iyo saaka aroortii hore ayaa dhowr jeer oo kala duwan shacabka magaalada Hargeysa waxa ay ku kaceen dhawaqa hawada sare ka imaanaya iyo guuxa diyaaradahan oo joog hoose waliba qaarkood ay ku soconayeen waa laba diyaaradood oo ah kuwa basaasa isla markaana wax burburiya ama duqeymaha fuliya sidaas si lamida diyaaradahan waxay ururin karaan xog walba oo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin madaxda Somaliland labada diyaaradood waxaa la sheegay markii hore hawada inay masaafo ahaan 21 feet ay kor u koreen ama kor ay aadeen markii dambena ay hoos ilaa 10 feet ay soo aadeen oo dhulka ah taas oo markii dambe ay dadka shacabka ah xataa qaarkood sawirro iyo muuqaalo ka duubeen diyaaradahan waxaa la sheegay inay yihiin diyaarado casri ah oo waliba qarnigii ugu dambeeyay uu Turkigu farsameeyay waxay isticmaali karaan ama ay ka dhuuman karaan raadeerada waxay ka dhuuman karaan in laga hortago ama la soo rido sidaas si lamida waxay basaasi karaan wixii ay u baahdaan haddaba waxaa la isweydiinayaa diyaaradahan ma waxay basaaseen halka uu ku sugan yahay Cabdiraxmaan Cirro maxaa xilligan ku soo beegay maxayse tallaabo oo qaaday Somaliland markii ay Somaliland ogaatay in laba diyaaradood oo Turkidu leeyihiin ay ku jiraan hawada magaalada Hargeysa waaxda saadaasha hawada ee Somaliland ayaa la sheegay in ay si degdeg ah raadiyaha uga hadleen diyaaradahan iyagoo ku amray inay hawada Somaliland ka baxaan laakiin diyaaraduhu dhag jalaq uma siin oo waxay sii wateen arrimahoodii mar dambe ayaa la sheegay in tallaabooyin kale oo dheeri ah ay qaaday Somaliland oo markii dambe xataa lagu dacweeyay Israel taasoo markii dambe keentay ayaa la leeyahay in labada diyaaradood ay dib ugu laabtaan halkii ay ka soo kicitimeen oo ah dhinaca gobolka Sool labadii maalin ee la soo dhaafay ayaan idila wadaagay daawadayaal in Turkidu uu doonayo inuu saldhig ka sameesto taliska Goojacade taasi oo u suurta gashay laakiin hadda in Goojac diyaaradaha laga kiciyo ay toos hawada Hargeysa u gali karaan ama hawada Burco ama hawada Berbera ama hawada Gibiley waa darbaaxa culus oo ku dhacday Somaliland oo xataa waxa la ogaan karaa halka uu ku sugan yahay madaxweynaha Somaliland halka uu ku sugan yahay madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland halka uu ku sugan yahay janalka ugu sareeya ciidanka militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug iyo golaha wasiirada oo mid loo ogaan karo ujeedooyinkooda xataa Turkidu waxay awood u leeyihiin maadaama qalab casri ah isticmaalaan inay telefoonada madaxda Somaliland dhageystaan taas oo xog fudud siin karta ayaa la leeyahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dad badan oo arrimahan la socda waxay leeyihiin tani waa darbaaxo culus oo ku dhacday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan in ay xakameyn weyday ama ay ogaan weyday xog ururin ku saabsan Hargeysa halka dawladda Turkigu ay xogtaas oo dhan ogaatay hadda maxaa waxa u furan ama maxaa tala u furan Hargeysa ama maamulka Somaliland dad badan waxay leeyihiin
somalilan waa inay qaado tallaabooyin dheeraad ah waa inay codsi degdeg ah u dirto israa'iil oo ku aadan in hawadeeda la ilaaliyo maadaama raadiyaha ugu weyn ee soomaaliya laga hago uu yaallo muqdisho oo raadiyihii keliya ee yaallay hargeysa bilo ka hor la qarxiyey maadaama raadiyahaasi la sheegay inuu wax badan doonayey inuu burburiyo dad walba ama dadka arrimahan la socday waxay leeyihiin tanina waa dharbaxo culus oo ku dhacday somalilan oo ku aadan in hadda wixii ka dambeeya si fudud loola socon karo dhaqdhaqaaqooda halkaasi ka jira waxay ku soo kordha saaxiibayaal wararkeena dambe ayaynu ku eegi doonaa markana caasiya waxaan fiirinayaa gobolka sool magaalada laascaanood khilaaf culus oo u dhexeeya madaxda ugu sarreysa maamulka waqooyi bari ayaa laga soo warinayaa gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool 48 saac la soo dhaafay magaalada laascaanood si weyn ayaa looga dareemay khilaafka dhexstaalka u ah ishardanka u dhaxeeya cabdiqaadir firdhiye iyo ku-xigeenkiisa cabdirashiid jibriil cawd wararka la helaya waxay tilmaamayaan in labada nin ay isku khilaafeen arrimo masiiri ah oo maamulka waqooyi bari taabanaya waxaana wararka iyo macluumaadka la helayahay ay tilmaamayaan intani ay tahay dharbaaxa culus oo ku dhacday cabdiqaadir firdhiye oo ku aadan markii la caleemo saaraba inuu khilaaf la kowsaday ninkan la yidhaahdo abwaan cabdirashiid jibriil waa nin ciidamo xoog leh haysta waa nin taageero buuxda ka haysta beeshiisa warsangeli waana nin dad badan ay aaminsan yihiin inuu waxgooyo waxna galo ceergaabo in ninkan uu si degdeg u qabto ayay ballantu ahaayeen oo ay ku wada heshiiyeen cabdiqaadir firdhiye iyo ku-xigeenkiisu laakiin xogaha la helayahay waxay leeyihiin labada dhinac wax badan bay isku khilaafeen oo ku saabsan masiirka iyo mustaqbalka maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada laascaanood laakiin ceebta kale ee jirta ayaa waxay tahay in garaadada maamulka waqooyi bari ay dusha sare ka eeganayaan khilaafaadkan curyaamin kara maamulkan curdunka ah ee dhowaan uun la siiyey aqoonsiga haddii dowladda soomaaliya dabcan ay aragto dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabahan jira dad badan waxay leeyihiin waa culays weyn oo soo fuulay somalilan oo culays weyn oo soo fuulay aan lehe waa dowlad goboleedka waqooyi bari maadaama hadda un aqoonsi la siiyey hadday la kowsadaan arrimo khilaaf iyo wax ku saabsanna ay xaajadoodu tegi doonto meel barakeley ah cabdiqaadir firdhiye isaga waxaa lagu canaananayaa laguna dhaliilayaa si kale haddaan u dhigo in uu wax tanaasul ah u samayn weeyo ku-xigeenkiisa inuu ceergaabo qabto abwaan cabdirashiid jibriil waa waxa loo doortay ayuu yidhi sargaal ka hoos shaqeeya cabdiqaadir firdhiye oo dabcan aan wax ka weydiiyey khilaafka labada nin dad badan oo arrimahan la socdana waxay leeyihiin abwaan cabdirashiid jibriil waxa looga baahan yahay markan inuu wax badan oo muddo la xeerinayay laftirkiisu uu markan sameeyo wax kale oo ku saabsan yacni inuu laftirkiisu tanaasul sameeyo haddii uu firdhiye ka roonaan waayey garadada maamulka waqooyi bari ayaa iyagu dib u garasho sameeyey iyagoo raba khilaafka dhexdooda ah inay wada hadal ku xaliyaan labada nin laakiin sida ay xaaladdu u muuqato waxaad moodaa inaysan waxba isbedelayn waxna soo kordhayn oo dhinacyadu ay samaynayaan dhaqdhaqaaqii ugu sarreeyey khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin cabdiqaadir firdhiye iyo sidoo kale ku-xigeenkiisu haddii ay xal ka gaari waayaan qodobada hadda yaalla ama miiska saaran waxaa dhici doonta wax aan la filayn oo ah in garaadadu ay soo farageliyaan ama muushin laga keeno cabdiqaadir firdhiye ku-xigeenkiisa oo talada laga tuuro kuwo kalena halkaasi la keeno waxay ku soo kordha saaxiibayaal weynoo wararkeena dambe markana qodobadeenna kale dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemayaa gobolka sanaag beelweynta faca weyn ee warsangeli ayaa la soo warinayaa inay markan laba daran mid dooro ay ku jiraan waa inay dhinaca maamulka waqooyi bari la saftaan ama waa inay dhinaca somalilan aadaan oo ay ka dhabeeyaan hadafkooda la xidhiira in ceergaabo la qabto ama la difaaco kol hore waxaa jira heshiisyo dhex maray labada dhinac waa somalilan iyo sidoo kale beesha warsangeli oo ku aadanaa haddii ciidanka waqooyi bari ay dabcan soo weeraraan magaalada la yidhaahdo ceergaabo in warsangeliga siciid cabdulaahi deni ciidankiisa iyo kuwa somalilan ay si wada jir ah magaalada u difaacaan laakiin gorgortan xoog leh ayay magaaladu ku jirtaa waxaa la leeyahay suldaan siciid suldaan cabdisalaan maxamuud garaad cali shire waa ninka beesha warsangeli hogaamiye ee wuxuu isagu qaatay go'aan ah in haba yaraatee uusan dusha ka eegan xaaladda ceergaabo inta ay waqooyi bari gacanta uga gelayso taa beddelkeeda waxaa la soo warinayaa in abwaan cabdirashiid jibriil uu telefoonka kula hadlay isagoo u sheegay
in aan loo adeegsan burburinta magaalada Ceerigaabo ama gobolka Sanaag. sidaas si lamida dad kale oo arrimaha la socda waxay leeyihiin waa in si degdeg ah maamulka waqooyi bari uu dejiyo istiraatiijiyadii ugu dambeysay oo ku aadan in la soo gabagabeeyo cid walba oo lagu tuhmayo inay carqalad ku tahay nabadda iyo xasiloonida ka jirta geyiga. si walbaba ha ahaatee haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto dad badan ayaa aaminsan inay wax badan fashilmi doonaan ama wax badan isbedeli doonaan, taasi oo ay dad badan u arkaan inaysan cidna dan ugu jirin marka laga hadlayo xaaladaha halkaasi ka taagan oo midba midka kale uu leeyahay xaajadu faraha ayay ka baxday. waynu arki doonaa dhaqdhaqaaqa xoogga leh ee ka socda gobolka Sanaag iyo haddii uu dagaal ka dhaco gobolka gaar ahaan Ceerigaabo oo la leeyahay hadda gacmaha isku dhiibaya midba midka kale ayuu ku eedeynayaa inuu hagardaacinayo gacan ku haynta magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo dabcan dhinacyo kala duwan ay isku hayaan. guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin. haddii tahay markii kuugu horeysayna nagu soo biir oo subscribe channelka Daraja Media, waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah mar walba halkan aan ku daabacnay. soo dhawow daawade mar kale.